maamulka gobolka Jubbada Hoose ayaa deeq raashin ah waxay gaarsiiyeen dadka ku nool deegaanada waqooyiga ka ah magaalada Kismaayo oo ay horey u maamuli jireen ururka Al-Shabaab balse haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland oo garab ka helaya kuwa AMISOM. qaar ka mid ah dadka deeqda la gaarsiiyay oo la hadlay Hon Cable TV waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan: bariis, bur, sokor, timir, saliid aan soo gaarsiiyay maamulka Jubbaland ayaa u mahadcelinayna waxaa la isiiyay timir iyo bariis iyo sokor iyo bur iyo saliid insha Allah ciidankayna Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed kor Allah ka dhigo guul iyo gargaar Ilaahay uga barine Ilaahay idinkiis nagoo dhibaataysan ayay noo imaadeen oo dhibaatada naga bixiyaan. gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa tilmaamay: meeshaan aan hadda idin kala hadlayo waa tuulada Yoontoy. saacad ka hor waxaan joognay Buurguduud oo ku soo booqanay shacabka joogay iyo ciidanka Jubbaland iyo AMISOM labadaba. diire iyo farxad bay u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Jubbaland, Jubbada Hoose, gobolka Jubbada Hoose. dadkuna runtii waxaan ka dareennay dad baahan oo dawlad u baahan, dad waqti dheer gacan cadow ku jiray burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyay dagaalo badan iyo dhibaatooyin badan ay ku habsadeen. gacanta ugu dambaysan ay tahay gacanta madaxayaasha. runtii waxay noo sheegeen guriga oo u jira 100 mitir wax ka yar inay 2 maalmood 3 maalmood ay ka oomanaadaan. runtii waa wax laga naxaweeyey. dadka noocaasina waxay sheeganayaan diin bay sheeganayaan. qof gabar umul ah islaam waayeelo 80 jirta ilma caruura biyihii ay ka cabi lahayd 3 maalmood ka oomiyey islaamnimada sheeganaya. waxaan u doonayaa culimada iyo inay ka hadlaan arrimahaas noocaas oo kale ah. dad aad u wanaagsan oo wajigoodu faraxsan yahay, laakiin baahi iyo oon iyo xufaad iyo dawlad la'aan ay ka muuqato ay ahaayeen. islaamka loogu soo dhaweeyeen labada deegaano ee xirnay. Cabdi Qadar Imaan Dhaqane, Hon Cable TV, magaalada Kismaayo.